الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ilaahi subxaana wa tacaala mahad iskale. runtii kulankan wuxuu ahay kulan aad iyo aad u qiimo badan la iskugu yimid in dalka iyo dadka iyo diinta loo duceeyo. waa kulan in badan soo socday, waa kulan ay isku yimideen dhalinyaro yaryar ahlu qur'aan ah, ayaga go-aansaday ku tashtay in ay dalkooda keliya waxa samata bixi kara ay tahay kalaamu ullahi min rabbi alcaalamiin. saan ognahay fi taariikhi alislaam marka dib loo fiiriyo wadamo badan oo islaam ah ayaa runtii ay ka mid tahay masar ku badbaaday qur'aanka. xasuusta qur'aanku waxay keenaysaa soomaali inay yihiin dad ahlu qur'aan ah. dalkan waxaad ogtihiin dhibka uu soo maray. waqtiyada hore waxaa jiri jiray aan dhalinyarta ahayn roobdoonka markii la samey jiray in qur'aan la akhri jiray. markii dagaal uu dhaco oo dhiigga uu bato oo dhibaatadu ay badato ee gaajo ay timaado, dadku inay isku soo baxaan ay qur'aan akhri jireen. ilaahay subxaanahu wa tacala uu ka qaadi jiray. kitaabka qur'aanka oo la akhriyo walaalayaal waxaa ku imaanayso sakiina wa ghashiyatuhum araxma wa xafadathum almalaa'ika. walaalayaal kitaabka qur'aanka waa kitaab dhamaystiran. suu ilahay qur'aankiisa ku leeyahay: alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum alislaama diina. saa ognahay maxaa faa'iido leedahay in qur'aan la akhriyo? maxay faa'iido leedahay in la iskugu yimaado oo dalka loo duceeyo? ducadu aayado qur'aan oo badan iyo axaadiis badanaa ka hadleen. fii suurati albaqara alla qur'aankiisa wuxuu ku leeyahay: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. haddii ku weydiiyaan nabi allow addoomankeyga intay joogaan فإني قريب أجيب, waa ii dhow yihiin oo mar walba alla subxaanaه wa tacaala addoomadiisa iyo looma dhexeeyo allah subxaanaه wa tacaala. ducada markaad duceysato ilaahay baridid walaalayaal allah subxaanaه wa tacaala waa aqbalaya. maxaa yeelay xadiidka nebiga sal ly slam waxaa adducaau mukhu lcibaada. cibaadadan aa arkaysiin oo dhan, qur'aankan la akhrina oo dhan, adkaartan la akhrina oo dhan, waxaa asal u tahay duca. ducadana waa mukhu lcibaada, waa dhuuxa cibaadada. cibaado duca la ma shaqeynayso, duco cibaada la ma shaqeynayso. muhimadda marka waxay tahay ilahi qur'aankiisa ku leeyahay fi suurati alghaafir: wa qaala rabbukum udcunii astajib lakum. iweydiista waa idinka aqbalaya, iweydiista waa idin siinaya. walaalayaal qur'aanka faa'iido leh waxay tahay dhibaatadoo dhan ayuu wuxuu u yahay dabdamis. saa ogtihiin ibraahim calayhi الsalaam markii dabka lagu riday gargaarka ugu horrey muxuu ahay? amarkii bardan wa salaama calى ibraahim. dalkan qabow iyo nabad iyo naxariis hadii laga rabo kalaam ullahi hala badiyo. sababtu waxay tahay walaalayaal dhiiggan iyo dulmigan iyo dhibaatadan iyo isnaceebka waxaa keeno qur'aankii oo laga tago. qur'aanka markii laga tago, cibaadada laga tago, ducada laga tago, duca cibaada lama shaqeynayso. waxaa laga yaabaa maanta haddii aan u duceyna dalkan si qalbiyan oo allah subxaanaه wa tacaala qalbigeena ha kulmiye mu'alafat اlqulub allah naga dhigo. haddii qalbigeena aan kulmo dalkan u duceyna dalkan barwaaqo haystaahe nabad kaliya u dhiman, nabaddana wuu helaya. nabadda waxay ku jirtaa diinta. addiinu yusran walan yushaada diinu axada ilaa galaba. haddana waatuu ilahay qur'aankiisa ku leeyahay diintu wax walbo ay kulmisaa, dhibaato ma kulmiso. naxariis, makfira, raxma, waa cadaab dhan kuma imaan. maxaa yeele qur'aanka qofka fiiri, ahlu qur'aanka waxaa la yidhi allah subxaana wa tacaala ku leeyahay qofka ahlu qur'aanka ma la cadaabayo. maxaa yeelay waxaa laga tacliiqataa culamada leeyihiin dalkaas oo kalaamullahi lagu akriyo oo qalbiyan loogu akriyo in dhibaatada laga qaadayo.
dalkan ilahay dhibaatada ka qaado walaalayaalow kalaamullaahi meel aan loo cararo meel ayan ma jirto maanta meel kale oo loo carari kara ma jiro yuuna shaki idinka gelin qur'aanka yaana shaki idinka gelin diinta waa diin dhamaystiran waa diin الraxma waa diin اlwaasica maxaa ilaha haddaa iyadoo cararti waatu ila qur'anka isku leeyahay fafiruu ilى allah inii lakum minhu nadiiru mubiin meel loo carara iyadeena ma jirto dadka ahlulculamaa mar walbo markay tawxiidka af ku qabsanayaan macnaheeda maxaa waaye dhibaataday ka cararayan soo ma maxaa lagu yihi markaad shakisid oo ka shakisid in lagu dili rabo amba dhibaato ee soo socota aragtid xasbuna allahu wa nicma alwakiil waayo lagu leeyahay ma la isweydiiyey waxaa imaanaya cadowga o dhan waa kaa sikanaa waqtigii nabiga sal ly slam markay arkaan in cadowga soo hareereeyey ee cadowga u yimid ee kufaaru quraysh dagaal ku bilaabi rabaan maxay akri jireen kalaamullahi soo ma 77 ahlulqur'aan waatay ku shahiideen dagaalka uxud soo ma walaalayaal waxaan u baahanay inaan fahno horta qur'aanku macnihiisa muxuu yahay qur'aanku maxaa faa'iida laga helaya qur'aanku muxuu daawo u yahay يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فيري dadku markay ilaahooda aadaan ee ilaahooda qalbi saliim ula tagaan oo biqalbin saliim ula tagaan allah subxaanahu wa tacala waa ka aqbalaya maxaa imaanayso mawcidatu min rabbikum wa shifaa qalbigu wuxuu yahay daawo wuxuu idin yahay hanuun wuxuu idin yahay naxariis yuu u yahay mu'miniin dhaalimiin u maahan watuu fii suurati اlisraa ku leeyahay wananuzilu qur'aanka waxaa uu soo dejinay wa shifaaun fir inaan fahmno waraxmatun walaa yaziidu الظaalimiina ilaa khasaara wallahi nin dhaalima ee ummadda dhibay ee ummadda dulmi qur'an waxba uma ziyaadinayo ummadda haddii kaa nabad gasho ilahay qalbigeeda ku xirto cilaaqa maca alla alla yeelato alla wuu ku ilaalinaya walaalayaal qur'aankan fadliga uu leeyahy fadli la soo koobi kara maaha iqra'u lqur'aana qofka qur'aanka aqriya fa inahu yaأti yowma alqiyaamati shafiican liasxaabi inaan fahamna muhiim waaye qur'aanka asaa kuu doodaayo marka asaa wuxuu kuu naqanaa qof kuu doodo culummada qur'aanka akhriso balla wareysta sheekh cabdirashaad asuufi qisana kusoo gaabinaya baa nin injineer wuxuu ku dhaha ma adduunya iska baratid reer sheekh alisuufiyaa tahay qur'aanka waa baratay ma iska dhaaftid qur'aankan wax un kaleba baratido farsamooyin kale ku shaqaysatid waxay isla tageen qadar ninkii injineer u ahay sheekh cabdirashiid imaam uu naqday masaajidku imaam ka naqday dhalashadii qadaryaanka la siiyey ninkii laabtuna qaxooti u ahay maxaa loo kala maxaa yeelay ninka ahlu qur'aan waa wuxuu aamin wuxuu dhaha qur'aanka wuxuuna isiineen heli maayo dhaaf maanta heerkuu gaarsiisan waa arkaysiin soo ma culimada adduunka saddex culama adduunka ugu khatarsan marka la dhaho culamaa ulquraa dadkii qur'aanka akhriya ciise macsaraawi sheekh suways nin la dhaho iyo asiga waay walaalayaal inaan fahamno waay martabadaas waxaa ku gaariyey ahlulqur'aan culamo waxaa jirtay ayagana dad ahlu qur'aan ahaayeen oo dalkan joogay dalkana u ducayno madaxda u ducayno dadka waa wada dhiban yihiin qof walba oo soomaaliya jooga saakay waa dhiban yahay qof saaka caafimaad qaba ma jiraa misanaani alcafu watasaamux iyo walqur'aan basaa loo baahan yahay qur'aanka in la akhristo in la iscafiyo in la tasaamuxo maxaa yeele qur'aanku iimaankuu ziyaadiya wajilat quluubuhum soo mahan inama almuminuuna ida dukira allah wajilat quluubuhum soo mahan ayadda qur'aanka وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا فيري إيمانك زيادة إيمانك مركو سماد وحد مانا ظلم ذلك الظلمسين وحد مانا يعني ذاتكو قرقرت أمانيس ذاتكنا أو نحرس دا أمانيس ما لحظة أدعينه كو أيها مضين لو دعي runtii waa dhiban yihiin dhib waxaa haysta mas-uuliyad qofkii mas-uul laga dhigaasaa dhibhaysto way ka carari jireen abu dar alkhafaari nabiga sal slam u tegey qisaba qisay keenaysaa markaasu wuxuu yihi maa ii magacaawdid meel ii magacaaw dadkan waxa u qaybinaysaa bal aniga meel ii magacaw nabi allo abu dar wuxuu iska dhaaf nin waxaa tahay jilacsan nin waxaa tahay taqwo badan nin waxaa tahay dadka markay ku ooyaan la oynaayo abu dar iska dhaaf ma fahmi kartiin nin aad u naxariis badan waahay zaad addunya la jira ninkaas adduunyada wuu ka carari jiray marka waxaan rabnaa qof walboo saaka mas-uul qof walbo meeshaan joogo mas-uul u yahay wallahi dalkaa mas-uul u ka yahay madaxweynaha keliya mas-uul kama ahan ra-isul wasaaraha mas-uul kama ahan dadkan jooga mas-uul kama ahan marka waxaan ilaha qur'aanka aan ilaalino mar walbana aan wadno intaas qur'aankan ilahi subxaana wa tacaala hanugu hanuuniyo dalkan allah ku nabadeeyo madaxdana allah fahamsiiyo in dalkan ay noo gargaaraan insha allah wassalamu alaikum waraxmatullahi barakatu